waxaan ahay ummad nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo saxan jirin asagoo dhargan dariskiisana ay baahan yihiin inta gargaarka u baahan aan u gargaarno magacayga waa Roodo Xuseen Aadan waxaan ahay case worker waxaana ka shaqeynayaa hay'adaha samafalka muddo gaarayso 6 sano shaqadayda maalinlaha subaxii markaan soo galo markaan xafiiska imaado waxaan sii aadaa kaamamka si aan u soo ogaado xogta meesha ka jirto iyo dadka dhibanayaasha ah oo baahida qabto markii aan soo ogaado ka dambe dadka wixii dhibanaa waxaan u soo qaadaa referral ayaan geeyaa ama isbitaalada ayaan u refer gareeyaa markaas kadib markii aan adeegooda u soo dhameeyo waxaan ku soo celiyaa maxaa la dhihi jiray meesha ay u baahan yihiin oo guryahooda ama haddii ay u baahnayna waxaan geeyaa meel maskax dejin ah oo anaga aan leenahay oo magaceeda safe house-ka markaas gabdhaha qaybta kale oo staffkayga ayaa waxay siiyaan counseling-ka ay siiyaan iyo adeegyada kale u baahan yihiin markaas kadibna saas ayaa shaqadayda maalinlaha ay igu soo dhamaataa inta aan ku kada jiray shaqadayda waa la kulmaa caqabado sida amniga iyo wax kale oo la mid ah laakiin igama hor istaagaya inaan joojiyo shaqada aan u hayo bulshada oo samafalka ah waxa igu dhiirigelinaya inaan samafalka ka shaqeeyo waa wax aan yaraanteedii jeclaa oo rabay inaan dadka caawiyo saas ayaa igu dhiirigelisay inaan haddana aan si caawinaadeyda aan sii wada oo joojinaynin waxaan dareemayaa xanuun marka arka dad badan oo u baahan macaawino oo ka soo qaad sidii aniga oo kale ilmahayga maanta hadaysan wax haysanin wixii aan dareemi lahaa ay hooyada kale tan ay dareemaysaa marka waa xanuunkooda mid ay dareemayaan mid ka badan ay anigana dareemaya fariinta u gudbinaya dadka hay'adaha humanitarian ka shaqeeya waxaan u gudbinayaa in ay dadka ka caawiyaan waxyaalaha ay u baahan yihiin oo basic needs-ka ah oo muhiimka ah ee ugu baahan yihiin taas ayaa anigana aan fariin u dir lahaa inay caawiyaan waxaan ahay ummad nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo saxan jirin asagoo dhargan dariskiisana ay baahan yihiin inta gargaarka u baahan aan u gargaarno